بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الأحبة، أن درسي وحكو سابسيسان يهي كن نافعا وفق مسلم كاهين النغضة قف واحتره وحاو قفك قبنا إياه waxay ku xidhnaan doontaa mas-uuliyaddiisa iyo inta uu awoodo. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu tilmaamayaa almu'minu ya'laf wa yu'laf walaa khayra fi man laa ya'laf walaa yu'laf wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas. xadiidkaasi sheekh al-Albani xasan ku tilmaamay. wuxuu nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam, qofka mu'minka ahi waa mid lagu soo hirto, yacni dadku ay ku soo talagalaan, ama waa mid dadka soo duma soo dhoweeya isna la soo dhoweeyo. dadka badh baa haddaad aragta laga weecdaa sharkiisa, dadka badhna waa lagu soo hirtaa meeshu joogo. qofka mu'minka ah nebigu wuxuu ku tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inuu yahay qofkaasi lagu soo hirto. waxaanu sheegay qofka dadka sharkiisa iyo dhibtiisa dadku ay uga cararaan inaanu khayr lahayn. dabeetana nebigu wuxuu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, wa khayru nnaasi anfacuhum linnaas. dadka waxaa u khayr badan ka u nafciga badan, ka u waxtar badan. dadka waxaa u khayr badan ka u waxtar badan. nabiga calayhi salaatu wasalaam baa mar kale isagoo jooga waxaa la keenay, la sheegay nin dibqallooc qaniinay. markii dibqalloocu qaniinay ayaa nin yimo wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisii oo naga qoladayadu waxbaanu tufnaaye, dadkan dibqallooca wax lagu tufaanu naqaanaa ku akrinaaye, ma ku akhriyaa? bal soo bandhig buu yidhi, waxaanad akhridaan muxuu yahay? wixii buu sheegay. dabeetana wuxuu nabigu yidhi, ba'si kuma jiro tanaad sheegtay, ee man istataaca minkum an yanfaca akhaa falyafcal. ciddii awooda walaalkii inuu wax taro ha yeela buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, ha taro. xadiidka saddexaad aan tilmaamaynaa wuxuu yahay, nabiga calayhi salaatu wasalaam nin baa u yimi oo wuxuu ku yidhi, yaa rasuula allahi, ayu nnaasi axabu ila allah wa ayu alacmaali axabu ila allah. dadka yaa alla u jecel yahay, acmaashase maxaa ilaahay u jecel yahay? nabigu calayhi salaatu wasalaam, xadiidkanu xasan ligayri uu sheekh al-Albani ku sheegayo, wuxuu nabigu yihi axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas. dadka ilaahay wuxuu ugu jecel yahay kuwa dadka ugu waxtar badan. acmaashana waxa loogu jecel yahay buu nabigu tilmaamay calayhi salaatu wasalaam, sururun tadkhiluha calaa muslim, qof muslima aad farxad geliso, ka farxisid, takshif canhu kurba, dhib haysato aad ka faydid, aw taqdi canhu daynan, ama dayn lagu leeyo aad ka bixisid, aw tatruda canhu juucan, ama gaajo aad ka quudisid. wala an amshiya maca akhin fi xaajatin axabu ilaya min an actakifa fi hada almasjidi shahra. wuxuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam, inaan qof muslima si aan baahidiisa ula gudo raaco ayaan ka jecelahay masaajidkayga kan waa masjidu madiina inaan bil ku ictikaafo. waxaan ka doorbidayaa buu nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam, qof muslima baahidiisa inaan gudo. waman kadama gaydahu walow shaa an yumdiyahu amdaa malaa allahu qalbahu yowma alqiyaamati rida. qofka cadhadiisa qarsada
isagoo awoodi kara inuu guto guto kaana ilaahay qalbigiisa maalinta qiyaame raalli ahaanshiyu ka buuxiya qofka walaalkii raaca ee xaajadiisa ilaa intuu uga gudayo raaca isagana maalinta qiyaame ee aanay bini aadamku sugmi karaynin baa ilaahay subxaanahu wa tacaala gomadiisa suga saddexdan xadiis aan akhriyay alfaadooda aan idin sharxay waxay wadaagaan oo sheegayaan qofka muslimkii inuu qof waxtara noqdo waxay sheegayaan acmaasha alle u jecel yahay inay tahay dadka kuwa ilaahay ugu jecel yahay inuu yahay dadka ka ugu nafci badan nafcigaynu ka waramaynaa ama nafci adduunye ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo bini aadamka waxa ugu nafci badan ambiyada iyo rususha waayo ilaahay baa wuxuu soo dhibay waxay aadanaha ku badbaadin lahaayeen adduun iyo aakhiraba oo markastoo bini aadamku uu qalloocdo oo jidka saxda uu ka lumo waxaa la soo dirayay rasuul ama nebi kaasoo loogu talagalay dadka inuu saxo oo noloshooda adduunyo wixii ka qaldamay inuu u toosiyo noloshooda aakhira wixii ka qalloocdayna inuu u toosiyo idan nafciga qofka muslimka laga rabo inuu yeeshaa waa nafci adduunyo iyo nafci aakhiro wixii uu tari karaba nafci aakhira u weyn oo ilaahay markuu dhaartay wuxuu yidhi walcasri إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر إلهي أنتو دارتي بو حكون دارتي بني آدم كونوا خسائر كسوغيه وحكا صور بعيد عن خسارينيني إن يتيدتك لغا هلا إيمان إيا عمل صالحة إيا حق إسفران إيا وحي نب حقا كسوغ قادة فريتان كيسا وإيكو صبران عدة عين كاسة ميسا وعدة خسارها كبدبادي إذا ضدك وحوانفع بدن له خسارها الله هو عندي بني آدم كبدبادي سه خسارها الله هو وخسارها إلهي وكل دارته والعصر إن الإنسان لفي خسر إلهي بكل دارته سبحانه وتعالى هذا وحي لنا هاي ضدك هدي قف ولبا شقدا أنت كبيغان وقبطه noloshu waa wax fudud oo la habayn karo haddii dadka inta ugu badani inta iska fadhiistaan dad gaara la yidhaahdo waxa qabtaan ummadaasi ma horumarto مثلا النبي محمد markuu joogay calayhi salaatu wasalaam saxaabu diin u sheegay miyay iska fadhiyeen oo yidhaahdeen dee nebi baa meesha jooga maya iyana way sii sheegayeen sidaa ogeed bay dhammaantood shaqo hayeen dhammaantood shaqaday qabteen مثلا أبي بكر عشرة المبشرين رجعوا وين الرقم إذا واحد كاني أبي بكر بس إسلامي ونبقى كان عليه الصلاة والسلام نبقى نوصيه هرمري صحابة النوم واللي بالشقادة أنتوا قرنا يجيبوا غبطة من دجال كقيب قلا من هجامية دجال نو من أول كتبت حديث كواركتين عن خالد بن وليد سمى ميدان مغل حكوا عن بحر خالد حديث ورينا ما يبغى شيء عن خالد رضي الله عنه ولا ليه لقى يا بين دركته هدنا عند المسلمين ورجل معروفة عند المسلمين داية تاريخنا ما أنت بني آدم ككلية استراتيجية عساكرت خطط كيسيبا لغوليغا وحكم ده وحي ومدة وقبن كريه وغبطي كوي علم قبرتي وحي ومدة وقبن كريه بيقبتين كوي تلقرني وحي ومدة مركا قف ولما مركا وكنت تلقلين وحقبته ويقول يسته حديثة مثلا دين تفافين هذا تلاهدان أو هبل أو هبل بقى مسؤول كأدي دين ضدك أنت كلنا ويسوق يان دي دين فافي ما يسوق أو هبل أنتو قارية ضدك مسلمين تسوي إسلامية مركو صدح عشان النبي قال لك شو جنبه بحي دبتنا سوى قبائل دم وضوء سوي إسلامي وكيني ضدك سيم كشوجا أفرتن صناد مسلم هيد ولي كانوا قف مات كيني أفرتن صناد مسلم هيد وهي أدوين حلكوا بكساري بعد ربع سنين النبي عليه الصلاة والسلام مركب حكومة المامية ضدك وحى خير بدن ضدك النفع بدن له واحترسن
waxtarkaasi wax kasta oo bini aadamka la taraa waa waxtar xataa xayawaanka waxa la taro xataa xayawaanka xadiista waa ku aragteen qof dumar oo la yiri ay waraabisay baa ilaahay ugu dambi dhaaf ay bay wax tartay dabeetana appreciation waa la qiray waxtarkeedii fashakara allahu laha baa layidhi ilaahay baa uga mahadnaqay eygay waraabisay nabi yuusuf baan qisadiisa markaa dhowr shay ka tilmaamaya maadaama waqtigu kooban yahay nabi yuusuf iyadoo la dulmiyey oo dembi aanu gelin lagu qaaday iyadoo la og yahay inaanu dambaabin uma badaa lahum min bacd ilaahay wuxuu tilmaamayaa markaa u caddaatay inaan waxba samaynin bay xukumeen oo ay xabsiga dhigeen muu odhanin nimanka ay xidhay waa gaalo xabsigoodii baan ku jiraa nimanka wax damboona maraya naga dhexeeya ma jiraan إلهي وحليه سبحانه وتعالى ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين لبويلو كم إذا دتك حبسك لك علي أيا أيمي ريا أي كسر رياضين بيلي النوفصر riyada waa la fasiraa waa cilmi la barto waana dhici kartaa riyadu sidii aad ugu riyootay practically inay iyadiiba noqoto aan ta'wiil u baahnayn waa dhici kartaa inay mid ta'wiil u baahan tahay waa dhici kartaa in shaydaan iyo naftu kugu cayaareen oo waxaad ku riyootay baanay wax qiimo la ahayn si kastaba ha ahaatee nebi yuusuf riyay u keeneen riyadaa noo fasir bay yidhaahdeen maxay raaciyeen innaa naraaka min almuxsiniin isagoo xabsi ku jira ayaa waxaa la leeyahay waxaanu kuu aragnaa qof wax tara oo ixsaan sameeya inaad tahay macnaheedu waxa weeyaan xabsiga gudihiisiibu wuxuu ku caanbaxay qof muxsina oo dadka wax taraya wuxuu tijaabiyey inuu iyagana wax taro laakiin wuxuu uga bilaabay waxtarka weyn buu uga bilaabo marka hore wuxuu sheegay ninkuu yahay inuu aabbayaal iyo awowyaal nebiyaa ku abtirsado dad tawxiidka rumaysan inuu yahay dad gaala ah inuu ka yimi dabeetana intaanu riyadii fasirin wuxuu u sheegay wixii ugu anfac badnaayee dadkani u baahnaayeen yaa saaxibay sijn aarbaabun mutafarriquuna khayruna min illaahi lwaaxid warma rabbiyo tiro badan baa faa'iido badan khayr leh mise ilaah kaliya in la caabudo maa tacbuduuna ilaa asmaa'an samaytumuuha antum wa aabaa'ukum wuxuu u sheegay markaasi gaalnimadu inay xun tahay ilaahay keligii inay rumeeyaan taasina inay tahay diinta quman kow waxtarkii markaa wuxuu uga bilaabay waxtar diineed oo aakhiradoodii adduunkooda badbaadinaya mar labaadna wixii ay ka dalbadeen buu u sharxay kii yidhi khamri baan walaaqayayna oo wuxuu ku yidhi waad bixi doontaa adigu khamrigaasaad walaaqi doontaa boqorkaad u shaqayn doontaa kii yidhi anigoo dusha kimisku sida khubus anigoo sida oo shimbira ka ayaan ku riyoodayna wuxuu yidhi adiga waa lagu dilayaa dabeetana waa lagu salbinayaa saasaad ku dhimanaysaa idan labada nin nebi yuusuf wixii ay rabeen wuu u sheegay wuxuu kaloo ugu daray wax uga anfac badan waxay rabeen oo ah inay salaamaan nebi yuusuf mar labaad iyo mar saddexaad baan ku noqonaynaa qisadiisa waayo waa meelun baan rabaa inaan taataabto waxa u yimi walaaladii oo kuwii godka ku riday ahaa muu odhanin haddaanana fursad haystaaye haweenanana god kale ku ridaa isagoo yar bay qaadeen god bay ku rideen waa kaga tageen dabeetana wixii iyo mashkilada uu soo maray de iyaga u sabab ahaa godkii baa laga qaatay sidii xoolaha la kala iibsaday nin boqora baa iibsaday gurigii boqortooyadu ku noolaa islaantii guriga joogtay baa hunguraysay waa diiday kufsi oo istidhi waa cararay waa marada ka daldalaacisay albaabkaa lagula kulmay dabeetana isagiiba haddana la xidhay iyadoo laga markhaati kacay inaan isagu waxba dhimin ayaa isagii la xidhay kuwii waxaasoo dhiba u sababo baahan baa u yimi maxay leeyihin
قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين way yimaadeen raashin buu siiyey haddana lacagtii ay siteenna wuu ugu daray waa soo noqdeen akhiiran markii walaalkood kala hadhay yaraa ayay waxay leeyihiin ninkaagan talada hayaa wiilkan yare aabbo da'a buu leeyahay ee midkaayo ku bedel innaa naraaka min almuxsiniin erayga baan u jeedaa markaa eraygii labadii nin ee xabsiga la galay ay ku yidhaahdeen ayuu ku leeyihiin yuusuf walaaladii waxay leeyihiin innaa naraaka waxaanu kuu aragnaa min almuxsiniin kuwa samafala inaad ka mid tahay dee waa ninkii ay godka ku rideen oo haddana weliba mar dambana waa ku been abuurteen oo markuu wiilka ka reebay waxay dhahdeen in yasriq faqad saraqa akhun lahu min qabl isagoo madaxweynaha boqor oo meesha taagan bay waxay leeyihiin in yasriq hadduu yarkani waxaday mid ka horreeyay walaalo alla ahaa baa jiro tuuga waa isagan hor taagan ay leeyihiin mid hore tuuga baa jiray waxaasoo dhan umuu qabanin ee waxbuu tarayay saa ogeed baa walaaladii dhibta u geystay waxay leeyihiin innaa naraaka min almuxsiniin kuwa xabsiga la galay waxay leeyihiin innaa naraaka min almuxsiniin intaa waxaa sii dheer nebi yuusuf isagoo xabsiga ku jira oo wax dembiyana aan gelin ayaa boqorkii riyooday boqorkii markuu riyooday ayuu yidhi riyada ha lay fasiro riyadii boqorka dadkii way fasiri garan waayeen adqaathu axlaam bay ku tilmaameen tan fasirkeeda garan mayna bay idhaahdeen kii uu yidhi berigii hore waad badbaadaysaa oo boqorka u shaqeeyaa xasuustay markii hore war boqorka arrinkayga u sheeg buu yidhi waxba umuu sheegin waa iska ilaabay laakiin iminka markii riyo la soo qaaday buu xasuustay dabeetana wuxuu yidhi ha lay dira aniga anaa yuusuf u tegaya ninbaa halkeer jooga xabsigee oo riyada si fiican u fasiraye aniga ha lay diro ninkii baa yimi oo wuxuu leeyahy yuusuf ayuha sidiiqu aftinaa fi sabci baqaraatin simaanin yaakuluhunna sabcun cijaafun wa sabci sumbulaatin khudrin wa ukhara yaabisaatin lacallii arjicu ila annaasi lacallahum yaclamuun waxaanu aragnay 7 boqorkii wuxuu ku riyooday baa la yidhi 7 sac oo naaxnaaxsan oo 7 liitar cunayaan iyo 7 saabuul oo cagaaran iyo 7 kale oo engegan riyada fasir buu yidhi waxaa laga yaabaa dadkii inaan ku noqdo oo ay wax gartaane haddii lagu xidho oo dowlad gaaleed ku xidho oo lagu yidhaahdo ra'iisul wasaare ama madaxweynihii baa riyooday oo riyadii la rabaa in la fasiro oo aad weliba ogtahay riyadan inay ka warramayso dhaqaalaha waddankan iyo sida la yeelayo maxaad yeeli lahayd adana waa gaale ha baratay naga dah nabi yuusuf muu odhanin war nimankan gaaleed ha iska badhaan ee uu riyadii buu fasiray muu odhanin horta xabsiga iga sii daaya haddaan rabtaan inaan wax idintaba muu gorgortamin xabsiga haddaan ka baxo umbaan wax idiin samaynaya ma ku odhanin wuxuu taagan yahay anfacu nnaas inuu noqdo khayru nnaasi anfacuhum linnaas wuxuu u sheego wuxuu ku yidhi 7 sano oo barwaaqo ah idin soo mari doona 7daa barwaaqo ah wixii aa goosataan saabuulkiisa u daaya midhaha intaa cunaysaan mooyaane inta kale sideeda meel ku dhiga waxa ku xigi doona buu leeyahay 7 sannadood oo kale oo abaar ah oo 7daa sannadood ee abaarta waxaa cuntaan 7daa hore wixii aa beerayseen baa la cunayaa sanad kale ku xigi doona oo maxay ah barwaaqo ah oo nimankani 2 toddobaad un bay u sheegeen sanadka dambe xaguu ka keenay dee haddii 7 barwaaqo tahay oo 7da ku xigaa abaar tahay ka ku xigaa waa inuu noqdaa barwaaqo haddii kale wuxuu odhan lahaa 8 abaar hadda idin soo maraysa maadaama uu yidhi 7 abaara waxa macruufa sanadka ku xigaa markaa inuu khilaafa hada 7 uu yahay nabi yuusuf wuxuu u sheegay 15 sannadood dhaqaalaha waddanka sidii loo maamuli lahaa 15 sannadood ee mustaqbalka soo socda iyo dhaqaalaha waddanka kan Masar la yiraahdo sidii loo maamuli lahaa buu sharxay waxaan u sheegay dhibaatooyinka soo socda waxa lagaga baxayaa inay tahay 7 sannadood ee hore
kaydka ugu badan in la dhigto in yar oo la cuno mooyaane toddobada abaartee dambana kaydkii la dhigtay in lagaga baxo dabeetana sanad baa ku xigi doona waxay tilmaamaysaa qofka muslimka inuu yahay qof naafica aynama xal wartaxal meel kasta uu dego ama se uu tago qofka mu'minka inuu yahay qof waxtara abubakar ayaa mushrikiintii markii ay dhibeen muslimiinta ayuu is yidhi iska hijrood ardal xabasha iyo meeluun kaco ka bax makuu ka baxa barkil khamaad meel la yidhaahdo markuu marayay ayaa waxaa la kulmay nin la yidhaahdo ibnu daqina qabiil qaara la yidhaahdo buu oday caaqil suldaan uu u yihi waa qabiil gaaleed dabeetana abibakar buu wuxuu ku yidhi ayna turiid ya abibakar xagaad ku socotaa abibakar baa wuxuu yidhi akhrajanii qawmi min hadihi lbalda faana uriidu an asiixa fi lardi faacbuda rabbi tolkay baa isoo saaray oo maka iga soo saaray waxaan rabaa an asiixa fi lard siyaaxada waxaa la yidhaahdaa culammadii hore waxay ku tilmaamaan inay tahay qof intuu iska baxay inuu ilaahay inuu cibaadaysto meel gaaraba aan ku soconin iska dhaqaaqunoo meeshaad aragtaba ilaahay un ku caabudo meeshaas kaga tag abubakar wuxuu leeyahy maka waan iskaga imi waxaanan rabaa inaan iska socdo uun ilaahay dhulkiisa maro oo aan ilaahay caabudo waayo tolkay baa isoo saaray u fiirso ibnu daqina waa nin gaaleed oo oday qabiil gaaleed ka taliya ah wuxuu ku yidhi ina miluk laa yakhruj walaa yukhraj adigoo kale buu yidhi abibakarow nin tolkii ka tagana ma tihid nin la saarana ma tihid adna kuuma cuntato inaad iska tagto nin la saarana ma tihid waayo abibakar wuxuu ku leeyahay markaa fainaka tuksibu lmacduuma watasilu alraxima wataxmilu lkalla wataqri dayfa watuciinu calaa nawaa'ib alxaq abibakarow buu leeyahay adigu waxaa tahay nin dadka faramadhan aan waxba haysanin wax tara waxaad ahay buu leeyahay nin riximka iyo qaraabada iyo tolka xidid iyo xigaalba xidhiidhiya waxaad ahayd buu leeyahay qofka culus ee ama dayn ama mag ama wax loo haysto qof ka roga culayska waxaad ahayd buu leeyahay martida qof soora waxaad ahayd qof ugu gargaara dadka nawaa'ib alxaq abibakar markaa wuxuu ku sifeynaya qof bini aadam oo wax tari wixii uu qaban jiro dhan inuu qabto waana nin mushrika ninkaasaa ku sheegaya yani abibakar wuxuu ahaa dadka ugu anfaca badan leh ee bulshada keeda baahan keeda liita keeda culus keeda musaafirka ku walba wax tara saa awgeed buu leeyahay ninka qiimaha leh ee bini aadamka sidaa wuxu taran in la saaro maaha aniga ayaa ii magan tahay buu yidhi abibakar wuu soo celiyey makuu keenay isagoo inamadiisiina wata quraysh buu isugu yeedhay wuxuu yidhi qurayshay dhegaysta abibakar waa magantay ciddii abibakar taabataanay u taabatay carabtuna magantooda aad bay isugu ixtiraami jireen weliba markuu ninku yahay nin odayo reer ka taliya abibakar siibuu maka ku yimi inkastoo markuu waqti joogay gurigiisa hortiisuu masaajid yar ka samaystay nin markuu tukado aada u ilmeeya buu ahaa dabeetana quraysh ba ka ashtakoto waxay yidhaahdeen intay ninkii u tageen abibakar dumarka iyo carruurta iyo dadka buu naga fitnaynaya halkaas buu maanta dhan ku ooyaya qur-aan akhrinaya dee dadku ninkan weyn ee ooyaya waa raacayaane gurigiisa ha gala bay yidhaahdeen hadduu doonayo inuu ku jiro magangelyadaada gurigiisa ha galo wuxuu doonaya ha ku sameeyo marka wuu u yimi wuxuu ku yidhi dee abibakar waa lagaa cabanayaa anigana waxaynu isku ogeyn inaad magantay tahay dee tolka inaad dhibtana kuwa gurigaaga iska gal abibakar wuxuu yidhi ama aan kuu soo celiyo magantaadii dabeetana wuxuu yidhi abibakar waradna magannimadaada iska qaado anugu mabda'iga waan wadanayaaye adiguna free baa tahay maanta laga bilaabo xel kuma saara waxaan uga dan leeyahay xadiidku waa dheer yahay laakiin anigu meeshan u jeeda waa maxay nin mushrikaba abibakar wuxuu uga markhaati kacaya caynkan xataa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam intaan mucjizaadkan badani ka muuqanin
dadkii ugu horeeyay islaama maxay ku rumeeyeen مثلا dadkii ugu horeeyay islaama waxaynu oran karnaa Khadiija kamid ahay markuu nabigu u yimi calayhi salaatu wasalaam zamiluni isagoo leh idada oo cabsanaya ayaa waxay tiri wallahi la yukhzika Allahu abada ilaahay baan ku dhaartay alle waliga ku hoojin maayo waayo qof wax tarad ahayd bay leedahay intan Abi Bakar lagu yiri ilaag bay ku tiri Khadiija waxay leedahay nabi Maxamed calayhi salaatu wasalaam oo le waan cabsanayaa ba waxay ku leedahay ilaahay baan ku dhaartay rabbi ku hoojin maayo sababtu waxay tahay mid ka waxaysan wax siiya tii qofkii qaraaba xidhiidhiya qofkii culays haysta culayska ka roga qofkii marti soora yani bulshada qof wax ku tarabaad ahayd bay leedahay saadaradeed ma suurtagalaha in ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku hoojiyo taasi waxay sheegaysaa muslimiintii hore noocay ahaayeen anbiyadii nabiyullaahi Muhammad noocu ahaa Abi Bakar wuxuu ahaa maxaa dadku ku rumeeyeen maxay dadku u raaceen maxaa looga dambeeyay dad wax tarabay ahaayeen bulshada dhexdeeda dad wax tar ku ah wax tarku mid aakhiraha noqdo qofka naarta ka badbaadso waa wax tarka ugu weyn nabiga calayhi salaatu wasalaam dadkii u shaqeeyay waxa kamid ah wiil yar oo yahuudiya wuxuu kamid ahaa shaqaalii nabiga calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuu xanuunsaday waxa loo soo sheegay nabiga wiilkii inuu buko oo guriga abihi jiifo dabeetana nabiga calayhi salaatu wasalaam uu soo baxay wiilkii buu soo booqday dabeetana wiilkii buu la hadlay intuu madaxiisa fadhiistay wuxuu ku yiri wariya wiilow aslim warska islaam wiilkii ba abihi eegay markaa abihi ba wuxuu ku yiri markaa ati abul qasim sallallahu alayhi wasallam yeel waxa uu ku sheegaya abul qasim waa nabiga calayhi salaatu wasalaam kunyadiis dabeetana wiilkii baa islaamay markaasuu nabigu wuxuu leeyahay alxamdulillahi alladii anqadahu min annaar waxaan mahad u celinayaa allihii ka badbaadiyay wiilka ka naarta ka badbaadiyay aanu gaalnimo ku dhimanin yani nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam wuxuu gurigiisii uga yimi ee guriga yahuudiga u tagay ilmaha yar xanuunsanaya ama wiilka xanuunsanaya inuu naar ka badbaadiyo aanu ku dhimanin gaalnimada inaanu ku dhimanin waxaan dadka wax la taro oo waliba dadku wax tar waxay ugu baahi badan yihiin markay baahan yihiin ama aakhiradooda ha noqoto ama adduunkooda ha noqoto islaamnimada macnaheedu waxa weeyaan waa qof bini aadamka oo dhan nicmada la jeceliyo wanaag iyo khayrka waxa dhacay ilaahay wuxuu quraanka ka warramaya qiso suuratu yaasiin qisada ku jirta mu'min suuratu yaasiin nin ayaa ilaahay ka warramay ninka ilaahay magaciisa inooma sheegin magaalo deganaa lama sheegin wax title watay lama sheegin ilaahay wuxuu ku tilmaamaya wajaa min aqsa almadinati rajulun yas'a magaalada halka u dambaysan nin ordaya ka yimi ninkan magaaladii uu joogay saddex rasuul baa loo soo diray u fiirso qisadan saddex rasuul baa la soo diray laba la soo diray saddex baa lagu wixiiba waa beeniyeen adigu haddaad joogto magaalo saddex rasuul loo soo diray oo saddexdaba la beeniyay maxaad yeeli lahayd inta nagu badan waxa dhaw nimanka rasuusha diidaaniga aqbalaya soo ay ka ma tirahdeen يعني مسؤولية ما صارت ما دام صدح رسول بلديدي الله ده ماشي صدح رسول لديدي مشقة كبرنان لكن كان إلهي قرآن كلا آخرنا يا إلى قيام الساعة قصدي سوى حلاقو قري وقف اسكت دين ومسؤولية قاضي كأنفعه اسمه أوران صدح رسول ما ماشي شوقي وحو قرتي إن سجنا حل ساري أغيران إنه ضدك كوي هذا وهو يعني من كان راع سببتك الراعي سنة وردي شقية وحلي يا قوم اتبعوا المرسلين والرسل الراع بولي وهو ما حي سببته اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون لما السببات بو الراع بولي نمكن روح بيدك مرة بعد مركو هوري بني آدم كهدي يقول هدو يسيرادو نكن يدقالو كوغود دونيا يا كرسو كوغود دونيا يا وحبو أديك كاد دونيا هدا سيرادو وحلقة يبينات هورو الراعين وصلين كان دنتي سوطا مركا وحلي والرسل شو مركو هوري wax baydka mar rabto waa marka labaadna muxuu ku tilmaamay
وهم مهتدون وهنسين الراعة الصدى ما شرحيه لكن وحاول غدا لا انت الضمبه ninkii dadkii wuxuu leeyahay rususha raaca oo tawxiidkiisa buu qartay wuxuu leeyahay anu nimankaasi xaq bay sheegayaan waa raacay qisada ka muuqata waa la dilay ninkii waa la dilay ilaahay baa ka waramaya markuu dhintay siduu u fakarayay markuu dhintay aakhira qabtay siduu u fakarayay baa ilaahay inoo sheegaya wuxuu ka fakaraya qiila adkhulil janna baa ilaahay leeyahay waxa la yidhi war jannada gal قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين تلكي ولي وناك بول الراد عينيا وحلي الله جعلان لهاي إني تلكي أقادان وحن معي لهي سياسة دمي ويقول رافي إينها إسلاماني وحو ولي خير لا جعل يكوي سودي لي مو أورنين أدي قديل قد لهم هذا الله إلا ونار تكوا كوفا سماها يعني عقله بني آدم كنت بدنا أرسو بكفكره وكوي وحكوا سمياد ونا آخر ودر لكن يقول للدلي وقدر له الدلي وصدح رسوله بينيين ووحوا يري حق هيدو قدر له الدلي هدره أيها هدنا وحكوا فكرية ورمنكي يا وانا قال هلاي وشيء يقول الرعانة مركا وحي تلمام يسقفك مؤمن كينو يهي دتك قف خير كلا جعل dadka qof raba inay wanaaga qaataan khayrka la jecel haddaba qof kastoo muslima xilka saarani wuxuu yahay inaad noqoto qof bini aadamka khayrka u horseeda hadduu yahay mid adduunyo iyo hadduu yahay mid aakhiraba dunida dadku waxay ku islaaxi lahaa say nabad u heli lahaayeen kuwada ducafada si loogu gargaari lahaa kuwada jaahilkaasaa wax loo bari lahaa kuwada aqoonyahankaasaa loo tilmaami lahaa ummaddu markuu qof waliba xilka isa saaro oo contribute gareeyo wanaaga ayay ummad jirta noqotaa ummadda marka qof waliba uu iska dhiga cadam ilmas-uuliya inaan isaga waxba saarayn qol kalena laga sugay inay wax hagaajiyaan way jabtaa waana Soomaalidu say hadda u badatay dad maqan oo inaan garanayn meel ay ku maqan yihiin baynu sugaynaa wadankeennii iyo dalkeennii iyo dadkeennii bayna hagaajiyaan inaguna waxaynu rumaysanay qof waliba inaan isaga mas-uuliyadi saarayn ilaahayna wuxuu inoo tilmaamaya qur-aanka ninkaa saddexda rasuul iyadoo la diiday rumaysanin mas-uuliyad saaranta xil isa saaray weliba meesha lagu diiday aan joogin ee ka yimi min aqsa almadiina magaalada halka ugu dambaysa sifadu ku yimi haddana ahayd qof mas-uuliyadda xambaarsan oo degdegaya ilaahay wax calaamadan uma yahay rajul wala tankiiri rajulun baa lagu tilmaamay oo yasca nin ordayo unbuu ahaa waxaynu u baahanay markaa ayuha alaxiba dad wax tara inaynu noqono nabiguna calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamaya daa inaad wax practical oo ummadda u qabatee haddaad tilmaamto uun ninbaa nabiga u yimi sheeganaya dhib wuxuu raacana inuu u baahan yahay dabeetana riwaayadka qaarkoodna nabiga yidhi bay riwaayadka qaarkoodna nin kala yidhi mahma takun ninbaa wuxuu leeyahay war hebel u tag waa laga yaabaa inaad isaga wax ka hesho nabigu waxba ma hayo markaa عليه الصلاة والسلام tilmaamaya ninkan inaan waxba tari karaynin laakiin mu oran in waxba ku tari karin ma iska tag ee waxa la yidhi bal hebel u tag waxa laga yaabaa inaad ka hesho waxaad rabtay hebelkii buu u tagay dabeetana dantiisii buu ninkii kale u fuliyay markaasaa nabiga loo sheegay nabigu wuxuu yidhi man dalla calaa khayrin falahu mithlu ajri faacili xadiidkii muslim man dalla calaa khayrin qofka dadka khayr u tilmaama ninkan waxa loo tilmaamay waxbuu ku weydiisto waxa tiri waxa ma hayo laakiin waxaad ugu dartay war bal hebel siimar waa laga yaabaa inaad ninka ka heli karto mujarrad waa tilmaamtay adu waxba maad bixinin tilmaamtaasi hadii ay guul keento nabigu wuxuu leeyahay man dalla ala khayri wanaag cidii dadka u tilmaamta falahu mithlu ajri faa'ili kii sameeyay baa damti oo kii sameeyay ajarkiisii uu leeyahay aduguna ajar u dhigma ka sameeyay ajarkiisii baad leedahay idan ama nafci adduun ha noqdo ama nafci aakhira ha noqdo qofka mu'minka waa inuu naafic noqdaa waa inaad marka hore ka fakaraysaa dadka sidaad wax u tari lahayd Ali ibn Abi Talib
ayuu nebigu ciidan u dhiibay dagaal baa la galay khaybar meesha la yidhaahdo labadii maalmood hore waa la furan kari waayey wuu adkaaday dagaalkii maalin saddexaadii ayuu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam nin ilaahay jecel yahay ilaahayna jecel inuu raayada loo dhiibi doono cali oo xanuunsan ayaa loo yeedhay nebigaa u duceeyo ku tufay waa bogsaday cali baa la yidhi ciidanka hogaami dagaal buu gelaya haddaad janan dagaal gelisa maxaad kula dardaarmi lahayd nimanku iya kaa baxsanin soo maaha si fiican dagaalka u gal maya nebigu wuxuu kula dardaarmay fawallaahi لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أن يكون لك حمر النعم حنبو كلا دردان إلهي بان كل دارته مد قرأ كم مد قال داين إلهي كو صهرونيو أيا كاغا خير بدن جل كيس عساس يعني إنا ودك فرطان وغنيمة يحول بدن هشام وأتنا قال دينا والله xoolana waa ka soo helay waxa ka faa'iido badan buu nabigu leeyahay mid kamid ah inuu diinta qaato marka asalka qofka mu'minka xataa hadduu goob dagaal joogo dadka la maaha hadafkiisu dadka xoola ka hel maaha hadafkiisu waa dad intan inay faafto hadafkiisu waa inuu dadka naar ka badbaadiyo qof gubanaya hadduu ka soo horbaxo maxaad samayn lahayd qof dab ku dhago ololaya hadduu ka soo horbaxo wax kale kamaad fakarteen koow waxaad ka fakari lahayd maxay inaad bakhtiiso ma isodhan lahayd waa horta kolley waa kaa gubanaya uu sii socdaayo jeebabka baadhan balen wax ku sii jiraan ka gaadhsii saacadda iyo wax ka fur yani mentaalitiga qofka muslimkii dhaqaalaha maaha dadkan inaad xoola ka hesha maaha mentaalitiga qofka muslimkii maaha dadku inay dhintaan mentaalitiga qofka muslimkii waxa weeyaan dadku inay diinta gaadho inay dadku badbaadaan adduunkoodana badbaadaan aakhiradoodan badbaadaan sida awgeed buu nabigu wuxuu leeyahay qof qoro ku hanuuna kaaga khayr badan inaad gaal cascas hesho baalana markaa nabigu calayhi salaatu wasalaam mar hadduu ku tilmaamay axabu nnaasi ila allahi anfacuhum linnaas ama khayru nnaasi anfacuhum linnaas dadka waxa alle ugu jecelya ka dadka ugu waxtar badan ama uu tilmaamay dadka waxa ugu khayr badan ka dadka maxay ugu nafciga badan leh ama nabigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu tilmaamaya maalan ina allaha wa malaa'ikatahu wa ahla السماوات والأرض حتى النمل في جحرها وحتى الحوت ليصلون على معلم الناس الخير إلهي سبحانه وتعالى هي ملائكتيس هي السماء واحد دقن هي دولك واحد دقن حتى قرآن جدا قدك كتشرته أما كلونك بدأ كتشره وحي كصلينا إياه يعني إلهينا أن حريستي سوسينا إياه مخلوقات كنا إلهي بي وحي ويدين يا محي إلهي ندب قوة دافع ونحرسته على معلم الناس الخير قفك ضدك خير كبره أيها الأحبة صلاة بلادي ما يبان في الأيام سو كوبينا وحي نكو كوبينا nolosha waa inaad contribution ku yeelataa nolosha waa inaad qof waxtara noqotaa nolosha maaha inaad qof dheeraada noqoto oo wuxuu cuno iyo wuxuu xoogsado tiisa ka fakaraya inaad noqoto maaha qofka muslimka dhaqanka lagu yaqaan markaa waa maxay waa qof waxtara oo waxtarkiisu sida ambiyada ilaahay uu ka waramayo ilaa iyo gaalada ay gaadhayaan inaga muslimkii baa baynu anficilaa maxaynu gaal anfacnaa muslim oo dhan ka kaalaya intii kula dhulka ahayd ama kula dadka ahayd ama kula jaarka ahayd ama kula deganayd ayana fiicinu gaadhaynin ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacaala inuu diinteena ina fahamsiiyo inaga yeelo kuwii qumanaada dadkana qumanaanta ugu yeedha kuwa waxtara sida nebigu sheegaya calayhi salaatu wasalaam in rabbi inaga yeelo wasala allahuma calaa muxamadin wacala aalihi wasaxbihi wasalam walxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin